الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام البررة، ثم أما بعد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأفعال والآراء. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بهذه الكلمة في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal, marka u horeysa iyo mar walba ilaahay baa mahad iska leh. allah subxaanahu wa tacaala waxaynu ku dhaqannahay oo ku noolnahay waa nicmadiisa. ilaahay nicmadiisaynu ku dhaqannahay. wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina wamaa bikum min nicmatin famin allah وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. marka waxaynu ku dhaqannahay dal iyo dibad, miyiyo magaalo, meelaynu joognaba waa ilaahay nicmadiisa. sidaa awgeed waxaa ina ku waajiba mar walba in qalbigeenna iyo carabkeenna aanay ka bixin mahadnaqa ilaahay. alxamdu lilaah ereygaas inuu carabkeenna ku bato way fiican tahay. ilaahay wuxuu ku ammaanay nebiyullaahi nuux: innahu kaana cabdan shakuura. wuxuu ahaa addoon mahadnaq badan baa ilaahay yidhi. marka in carabkeenna iyo lisaankeenna iyo qalbigeenna hadiya gooraa leh mahadnaqa ilaahay inaynu badinno. alxamdu lilaah, alxamdu lilaah, oo aynan isku hadlayn aqoonteenna, awooddeenna, maalkeenna, caafimaadkeenna iyo nolosheenna, inaynan isku hadlayn ee qofku ogaado ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku dhaqdhaqaaqayo oo ku nool yahay nicmadiisa oo aanu isku filnayn. maxaad u malaynaysaa meesha nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam uu galabtii iyo aroortii odhan jiray: yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiith aslix lii sha'nii kullah walaa takilnii ilaa nafsii tarfata cayn. ilaahay buu u tawasulayaa biasmaahi alxusna. markaasuu wuxuu leeyahay raxmaddaada baan ilaahu ku weydiisanayaa. iskuma filni, kaama maarmi karo. isha intii la isku qabto hal mar ilbiriqsi wax lagu cabiro waxa ugu yar weeyaan. kaa maarmi kari maayo ilaahayow, marna kaama maarmi karo. marka inaynaan walaalayaal isku hadlayn waxa aynu maxaanku idhaahdaa ilaahay ina siiyey oo aynu haysanno, laakiin ilaahay isku hadlayno. waxaan waa iska kaalmo, laakiin axadkii ku siiyey marka aad garatid oo qalbigaaga uu ku weynaado waxaa ka dhalanaya ilaahay inaad jeclaato. caafimaadkan xagguu ka yimi? maalkan xagguu ka yimi? aqoontani xaggay ka timi? waxaan oo dhan bal xagguu ka yimi? mid kasta dib u raac. min allah, min allah, min allah, min allah. waxay taasi keenaysaa ilaahay inaad jeclaato. ilaahay inaad jeclaato. maanta haddii qof 1,000 shilin ku siiyo, berina uu 1,000 shilin ku siiyo, markaa is aragtaan buu 1,000 shilin ku siiyo. haddii loo dadka Nairobi yaa ugu jeceshay aw jaamac baan ugu jecelahay, oo maxaa ku jeclaat? war caadiba maaha ninkaas. indhaha haddaad is saartaan lacag buu kuu dhiibayaa. dee waxaa ku jeclaatay waxa uu ku siinaya soo maa. fa kayfa axadka leylan wa nahaaran nicmadiisu kugu socoto maxaad u malaynaysaa? leylan wa nahaaran wax kale iska daa, bal neefta aad sanka ka qaadanayso oksijiinta bilaash baa ku qaadanaysaa. dadku markay bukoodaan dhakhtarada la dhigo oksijiin u baahdaan
وقرنيسان سيدا حالة أتكانش وادويد وضيبا كادد وقبطي دبيتنا دختر بالا ديك وضيقي وحا لي برستايت باكو هيا قنشير كان قفكو مركو 50 بدافو ودريما انت بدن قنشير كاسي dabeetana waxaa la yidhi waa in qanjirka lagaa saaraa lacag baa la bixiyey qanjirkii baa laga saaray maalintii dambe dhakhtarrada weydinka arkay oo aroortii markay cusbatalka soo galaan dadka jiifa bukaanka ayuu dhakhtarku kormeeraa qof waliba uu eegaa xaalkiisa xal sidee ahaa caynkan kadib wuxuu fadhiistaa qolkii uu fadhiisan jiray odaygii buu marka uu qalay buu ku soo beegmay markaasuu iska warran buu ku yidhi sidee tahay odaygii markaasuu ilma indhihiisa ka soo daadatay waa ooy dhakhtarkii wuxuu adeer maxaa la ooyeysaa adoo tacbaansan oo kaar badani ku hayo ayaa lagu keenay waa lagu dadaalay operation fiican baa ilaahay naga ka dhigayo waa lagu guulaystay maasha allah si wacan baad imanka kaadidii kaaga imanaysaa leesh maxaad u ooyeysaa maqaalad cajiib ah buu ku jawaabay odaygii wuxuu yidhi maalintaan dhashay oo dunida imi ilaa maalintii dhakhtarkan la i keenay intaa waa kaadinaya bilaash baana ku kaadinayay wax lacaga ilaahay igama qaadin hal maalin oo aan idiin baahday oo kaadidii i qabatay baad tidhaahdeen intaas oo lacaga keena hal maalin baa idiin baahda oo kaadidii i qabatay 27 sano baan caadi bilaash lacag la'aan ku kaadinayay maalintaa ay kaadidu i qabatay baad tidhaahdeen intaas oo lacaga keena meeshu wax ka eegayso ma aragtay waxa aynu haysanno ilaahay ina siiyey waa xusuusin bay iga tahay naftaydana waa u sheegayaa idinkana waa idin xusuusinaya nicmadaas ilaahay ina siiyey fara badan qof waliba waxaad haysato cid badan oo aan haysan baa jirta marka inaan ilaahay u mahadnaqno waa is xusuusinayna intaa bacdigeed mawduuca waxaynu u doorannay dhacdo weyn oo dhacday taariikhda islaamka oo dhacdadii u horeysay islaamka ahayd midda mid la mid oo dhacda xilligii xabiibku noolaa calayhi salaatu wasalaam dhacdadaasi nin saxaabiyay ka dhacday waxaynu markaa qiimaynaynaa intaa inagu waa dembaabaynaa qofku waa dembaabi karaa isagoo sheekha isagoo mucallina isagoo mas-uula isagoo dhallinyaro ah isagoo waayeela waa dembaabaynaa habeen iyo maalin oo naf iyo shaytaan baa inagu xidhiidha waqtigan iminka la joogana dunuubtu waa iska badanta oo macaasidu waa badanta oo wixii ilaahay lagaga fogaanaya baa kolba soo kordhaya oo badanaya waa duni waalan oo suwixii waageedu bariyaba wax kaa cajabiyo un baad arki sida awgeed in dunuubta qofku marka ay ka dhacdo inuu soo noqdo dunuubtaasi ha noqoto mid waaweyn ama ha noqoto mid yaryar dembiyada ilaahay bani aadamka uu ka galo 3 dembi baa ugu weyn sida nusuusta shariicadu sheegtay dembiga koowaad ee ugu weyn waa maxay yaa ka jawaabay shirkiga ugu weyn afsax allahu lisaanak maxaa ku xiga dilka naf xaq darro lagu dilo maxaa ku xiga zinada ku xigta في سورة الفرقان با إلهي كشيء والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق محاكو حقه ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما سدح ذا الدنبيء إلهي لقال هو وين وقال لمو يدل حق دراءه يزنو بأقوين ما قدام بيجي نعاو كشيء كينا إنه ودم بينجور سداي كدعي نحاسة يدم بيجي كدعي أو زناء شريعة مال هذاك بيدكتي تصالح أم بن سحابي كان أسوق هذا الناي سيدا أنتو دم بيقول دعي إلهي أنتو أقول صور نقضي يهرك أبالك سؤجاري يا رسولك كشيء كي صلى الله عليه وسلم نكاسي وماعز نك الله يراهضه صحابي ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماعز بحال يراهضه ربني تميم نوال لغوشيغا إنه أها علماء كتب تاريخ دا قرطا غير أسلمين ولا غوشيغا أسلمي باس اللي هو بدنيه إنه أها رسولك صلى الله عليه وسلم غير كودا ورقد بو قري وباقي إني إسلام لماذا يدين تصوغلان إلى هنا صوب وقدقي
oo way soo muslimeen. wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee dhagax lagu dilo shareecada islaamka gudaheeda, intuu guur xalaala soo maray zinaystay dabadeedna ayuu ahaa Maacis ibnu Maalik. sanadka dhacdadaasi dhacday tolo waa goorma? taariikhyahanadu waqti go'an oo dabdi ah aad uma sheegaan, laakiin waxaa la sheegaa waxaa jirtay qof dumar oo ka dambaysay oo la oran jiray imra'atul ghaamidiya, nusuusta ku sheegtay. gabadhaasa waxaa la yidhaahdaa sanadkii sagaalaad ama sanadkii sagaalaad aakhirkiisii ama wax yar ka hor ayaa gabadhaa la rajmiyey, iyaduna waa ka horraysay. waa gabadhii rasuulka u timi sallallahu alayhi wa sallam iyadoo uur leh salawaatullaahi wasalaamu calayh, oo ay rasuulka ka codsatay in uu rajmiyo salawaatullaahi wasalaamu calayh. waa ay tidhi ma sidii aad Maacis u celisay baa doonaysa anna inaad ii celiso, oo dabeetana uu yidhi balato uurka soo dhig. dabeetana ay umushay oo ilmihii ay keentay, oo rasuulka bal soo nuuji ilmaha, oo dabeetana markuu naaskii jaqayoo dee 2 jir meelaha u yahay ay keentay. subaxii dambe jab kimis ah ama jab jabaati ah ay soo qaaday oo ay u dhiibtay. rasuulka ilaahayo aniga saaka wiiga maarmaayo waka halkaa ku ciyaarayo jabaatigiisa iska cunayo, oo hadday xadka layga oofiyo maanta ii baahan maayo, xadka ha layga oofiyo. fatahirnii yaa rasuul allah, itahir rasuulka ilaahayo. dabeetana maryihii lagu adkeeyey, dhagaxiisaas rajmiga ah loogu sameeyey. intaasoo dunuuba inaga ayna ka dhacaysa, haddana waqtiga maanta aynu joogno dad badan oo ina ka mid yihi dunuubta ka dhacaysa waxbaba lama ahaba, waxba lama aha. waabaa waxaa dhacday xajka ayaa la xajiyey, cumradii oo la tawaafayo kacbada ayaa niman Soomaaliya oo wada socda waxay arkeen dadkan eeshiyaanku waa dad in ka qalbi jilicsan oo hin badan inta badan. niman eeshiyaan oo kacbadii maradeedii haysto oo aad u ooyayo ilaahay toobad iyo istighfaar weydiisanay. nimankii bay isweydiiyeen marka Soomaalida ahaa ee wada socday, ma 2 ama 3 nin bay ahaayeen qiyaastii. bal nimanka iyahow bal siday u haystaan kacbada maradeeda oo u ooyayaan oo ilaahay dambi dhaaf u weydiisanayaan eeg, innaga maxaa ina helay? wax dareenaba ma lihiin. waa sidee? kii la socday baa yidhi war ma dembigay galeen baad ogtay, adigu maxaad gashay? يعني waxay tusinaysaa xogaa qalbi adeegeenna bay tusinaysaa, qalbi adeegeenna. inta waa dambaabaynaa qofku inuu ogaado dembigu ilaa saxaabadii waa dhacay heerarkiisa kala duwan, ilaa inta dunida la joogana uu dhacaya. qof nooc kastoo bulshada ka mid ka dhici karaa, laakiin ha dhimanin oo godka ha gelin adoo dembiile ah. in alla u toobad keento. kullu ibni aadam khataa wa khayru lkhataa'iina التوابون. إن آذن ودن وقفية، لكن أنت قفتا وحا وخير بدن كوا صنق شذا بدن، صنق شذا بدن. مركا قبل داسي أهيد نين كان صحابي ماعز أيام بالقصدي سربا إنان يردح قاله سي أينو إن شاء الله تعالى سفي عن الأدرينو يوحي بل أين أوران كرينو نبي قوم مساجد كدح فرديا عليه الصلاة والسلام. saxaabadiisii bartankooda fadhiya ayuu u soo galay ninkan saxaabiga ah. dabeetana saxaabadu ay rasuulka dhegaysanayaanoo uu la hadlaayo. xagga muuqaalka nin gaaban buu ahaa Maacis, markay taariikhda kutubta siirada ka waramayso wuxuu ahaa rajulun qasiir, nin gaaban buu ahaa. wuu u soo galay oo aan itaal weyneyn, nin lixaad le ma ahayn, in yaroo gaaban oo xagga itaalka نسير بوها وصقل ماكو وصقل رسولك ويمي صلوات الله والسلام عليه ويسهر تاجي أفر شرب رسولك كلا دوان تؤيمي رسولك إله يو زنيت فطهرني وازني استيه الداهري وإنظيفي يعني الذنب وين أشرف الخلق هرتي سلقا قرنا صلوات الله والسلام عليه ومساجد لحدي وتاجيه يا رسول الله قد ظلمت نفسي وزنيت فطهرني نفتي إذا وادلمي وازنيستي يطهر رسولك إلهي
zinadu waa dembi weyn oo cadiim ah waa jariimo weyn oo dunuubta insaanku galo cuquubaad waaweyn oo abaara leh oo cudurra leh oo balaayo leh baa ka dhaca wax badan oo insaanku sahashanayo nabiguna salawaatullaahi wasalaamu calayh ummadiisa aad buu uga digay waxaa ka mid ah xadiidka saxiixa ah yaa ummata muxamed يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته حديث بخاري مسلم صوصارين ومدي النبي محمدي إلهي بان قدارتي متشيرو أحد كغقي ربضا إلهي سبحانه وتعالى سيدو أغقي روضو إن أدون كيسو زينيستو أما أدونتيسو سينيستو سيدو إلهي وقي روضو سن بالعادي ما هب النبي يقول صلوات الله عليه إن بعادي ما سو وقي روضو أدون نرجو كم من المسلمين تا أما قفدوا مرة مسلمات كم يدو زينيسته إلهي سيدو وقي روضو وحلم إذا مجرو النبي يقول عليه الصلاة والسلام رسولك يسقو ساو قد جاي أي هذا ننكاس أرنتاسي كذا عادي يقول وزينيستي طاهر رسولك إلهي صلوات الله وسلام عليه يعني هو حويان زناد ودم بأذك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وضد يقال الإسرائيلي ساني وساني هجورسته سانيدنا سانيده هجورسته ودم بوين أو الشرائع دي إلهي سودة شيء أو دن حرام لماذا زناد أي حرامته أي سوافقين هل شرعي هل كتاب إلهي سودة شيء كتبتي يرسوشي وصادري لغما أرق أو ضع وكلا بايدي ويسكو وافقين صحيح البخاري وحا كسوغان قصة يابله أيا كسوغان أو عمر بن ميمون ورين أيو وحوليه هاي رأيت في الجاهلية قردة بالقصة دا أي وحان أركي حتى حيوان كسي زنادة أنعبهين وحان أركي جاهلية دي وحلي كان رسولكو صابحين عليه الصلاة والسلام waxaan arkay buu leeyahay Amr ibn Maymun waxaan arkay daanyeerka dhadig daanyeerad baan arkay ijtama'a calayha qiradatun daanyeera badan isugu yimaadeen qad zanat uzinaysat daanyeerka qofka yaqaana beeraha iyo damiiga waa lagu garanayaa waa xayawaanka ugu qiirada badan xagga wuxuu ka mid yahay tan nolosha la wadaagta wax yar haday ka maqnaato oo ama geed ama kayn ama meel ay xagga ka soo marto marka ugu horeysaba wuxuu shayga ugu horeeyo uu sameeyo uu ursanaya xubinka taranku ka ursanaya xagganu kala wareegaya marka aad buu ilaaliya daanyeerad baan arkay buu yiri daanyeera isugu yimaadeen farajamuha oo dhagax ay ku dilayaan ayaan arkay markaas wuxuu leeyahay ninkan saxaabiga ah farajamtuha ma'ahum ana wala rajmi markaan fahmay inay daanyeer kale u dhuumatay waa u raaciyay buu aniguna ilaa nafta laga jaray waa garad Soomaa waxay tusinaysaa mas'aladan xitaa xayawaanka agtooda sida ay ku tahay bay tusinaysaa wazinimo wazinadu waa ceeb wa an aadhum adduunkana waa ceeb iyo dulli aakhirana waa cadaab waxa garanaysan xadiidkii Bukhari iyo Muslim Samurah ibn Jundub radiyallahu anhu wardaah rasuulka markii la guureysiyay ama la dheelmiyay واتو رسولك صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة آتياني هبينكي حليها لبا ملك بائيهمي وإنهما ابتعثاني ويكحيين لبا ملك وإنهما قال لي انطلق وحي يلاهدين صعو وإني انطلقت أنيقو نوان صعدي معهما أنيقو لتشرة فأتينا على مثل التنور وحانو صعونبا وحان نمي تنار باني بالك موفدا لغو دبي روديده تنار دوشي بان سو تاغني فاذا فيه لغط واصوات ستنار كغديهيسا waxa ka baxaya buuq iyo cod iyo qaylo ayaa ka socota fatalacna fihi wa qoran sanayo saasaanu eegnay faida fihi rijalun wa nisaa'un uratun mise waxa ka buuxa dhixdiisa rag iyo dumar qaaqaawan قاقاون بميشن كجرا وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم حق هوسي هلع يضب باكا سو كعيا
markaasaa dabkaa iyo holacaasi say uga cararayaan isna uu dabada uga jiro bay afka ku soo dhowaanayaan tinaarka afkiisii bay ku soo dhowaanayaan faidaa ataahum dalika allahabu dawdaw marka ay dabkaasi uu ku yimaado waa qaylinayaan cabaad iyo qaylo markaasaan faqultu ma haulaa'i waa maxay kuwan qaala fainahum azunaatu wazawaani waa raggii iyo dumarkii dunida kala zinaysan jiray dumarkii raggii zinaysan jiray iyo dumarkii zinaysan jiray waa sidan xaaraan bay maryaha isugu dhigteen caaisha markii aakhire rasuulku ka warramayay iyo mowqifka ilaahay hortiisa dadku waxay soo istaagi doonaan iyagoo kabala iyagoo maryala iyagoo aan gudnayn iyagoo caynkana watuu rasuulku yidhi salaatu llahi wasalaamu calayh caaisha marka waxay tihi rasuulka ilaahayow dadka intaa tira la eg ee bannaanka la isugu saaree qaaqaawan miyaanay rag iyo dumarku cawradoodu isu muuqanayn caaisho arrinkaa waa ka adag yahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee waa caaisha waa runteed dareenka qof walba cabiri kara weeye maanta maxaad moodaa iyagoo dhar sita dadkii loo kala taaglaayay taas waaba qaawanaan la sheegay oo arrinkeedu adag yahay dunidan maanta aynu joogno iyagoo raggiina marya xidhan yahay dumarkiina marya xidhan yahay baa haddana zinadii socotaa oo loo kala taaglaayahay oo la isku qarsanaya marka zinadu heerkaasaa shareecadu gaarsiisay maaciz radiyallahu xadiiska bukhaari waa wariyey maaciz radiyallahu tacaala canhu waatuu nabiga majliska ugu yimid zanaytu fatahirnii waa zinaystay taahiri nabigu waa eegay sal alla alay wasalam wayxak irjic fastakfir illaaha watub ilayh war hooge war orodoo dib u noqo oo ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo alla u toobadkeen waa noqday dembigii uu galay ayaa haddana qalbigiisii gubaya mise waa kana haddana waa soo noqday ila nufuus bay ahaayeen ilaahay rumeeyey oo rabbi ku xidhan oo aakhiro og oo dembigu ay galeen dareenkoodu iimaanka ku jira ayaa wax badan xanuujinaya oo shaytaanku qofka waa gefka iyo dembiga uu kuu soo jiidaya laakiin ina aladiina taqow idaa masahum طaa'ifun min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun marka waa in waad gefaysaa laakiin markiiba inaad isqabataa war maxaa kugu dhacay war balaayada ku qaaday waa maxay war seen noqotay war balaayaa kugu dhacday waa ku sidee war alla u soo noqo alla u toobadkeen caynkan waa inaad tidhaahdaa idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allaha fastakfaruu lidunuubihim marka haddii xuma dhaco waa in durtaba ilaahay loo soo noqdaa subxaanahu wa tacaala ninkii maaciz radia allahu canhu waa soo noqday yaa rasuula allahi tahirnii waa mar labaad rasuulka ilaahayow idaahiri dembi baan galay iga nadiifi wayxaka irjic fastakfir illaah watub ilayh war hooge orodoo noqo oo war ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo toobadkeen orod waa noqday waa ishayn waaye haddana wixii ka dhacay buu dareemayaa waa soo noqday tahirnii yaa rasuula allah su-aasha marka isweydiinta le waxay tahay waa maxay qoomamada iyo shallaytanka intaa la eg uu la fadhiisan la'yahay ee saxaabigan wada waa dareenka dembigan uu dareemayo inta uu la egyahay iyo towbadan ilaahay inuu u soo noqdo uu rabo towbad saadiqa ah buu rabo alla inuu u soo noqdo oo nasuuxo ah oo ilaahay uu ku jeclaado subxaanahu wa tacaala mar saddexaad buu u yimid tahirnii yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo taahiri waa dembaabe mar afaraad buu haddana u yimid nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh markii afaraad baa rasuulku marka su'aalo weydiiyey wuxuu ku yidhi su-aashii u horraysay fiima utahiruka maxaan kaa daahiriyaa bal waxan aad ka cabanayso oon marba aad leedahay iga daahiri iyo kayskan aad gashay muxuu yahay qaala min azina zina iga dhacday rasuulku sal alla alay slm saxaabadii buu su'aal weydiiyey wuxuu yidhi abihi junuunun war ninkani wax waali ah miyaad ku ogeydeen anuu meerqab baan ku ogaayay wax xanuuna miyuu jiraa oo la soo darsay markaasay yidhaahdeen nebigu sal alla alay slm annahu laysa bijunuun wax waali ah ninkan ma hayso su'aal labaad buu ugu weydiiyey wuxuu yidhi ashariba khamran tolow ma khamri buu soo cabbayo xoogaa miyuu dawaqsan yahay oo miyaa si ka ah nin baa kacay raggii ka mida wuu ursaday ila baarka waa baxa qarmuunoo uraya weeye wuu ursaday bal in khamri soo cabbay
urtiisi laga dareemayo wax khamri ah iyo badaaba nin galay ma aha ninka nadiifta ah markaas nabiga su'aal saddexaad ku celiyo wuxuu ku yiri azanayta warmiyaad sinaysate faqala na'am ha markaas rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam su'aal afraad weydiiyay la'allaka qabbalta war waxa dhici karta inaad dhunkatay baa dhici karta aw ghammasta ama inaad taataabatayoo aad tuujisay baa dhici karta aw nadarta ama inaad eegtayoo isha u jabisay baa dhici karta qaala laa yaa rasuul allah may rasuulka ilaahayo intaa midna maaha waa kasii fog tahay su'aal shanaad buu weydiiyey wuxuu ku yidhi fahal tadrii ma zina zinadu waxa ay tahay ma garanaysaa horta bal ii qeex zinadu waxay tahay bal ii sheeg nacam أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا حرام بان أقول سيدا ننكو حاسكي سحلاشا أقول كلي سؤال شاسكو مكاسو عيري حبن كيغا ترنكا إيا حبن كيغا ترنكا أيا سيدا ودانتا عيل كلو يقول أقول دعي يعني وقيحة يا وحو الربائن أرنتو أي كدع دينو عدايو rasuulku sallallahu alayhi wa sallam markuu intaa sheegay oo dawaa qirasho meeshii u dambeysay buu qirtay ayaa rasuulku sallallahu wasallam alayhi tahirni uu leeyahay ayaa rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam xadkii waa in laga oofiyaa god ha loo qodo god baa loo qoday ilaa maxaan ku yiraahdaa miskihiisa ama halkaas simaha ka yara sareeyo xooga baa loo qoray قوقضي هل الرجمي رسولك صلوات الله وسلام عليه دغخ لغو رجمي ولا رجمي ماعس دغخي با لغو بلاابay shariicadu waxay uga gol leedahay qofka guur xalaal soo mara iyo qofka aan soo guursanay zinaysta way kala duwan yihiin qofka zinaystay aan guur xalaal soo marin isagu waxa kan waa markii ugu horeysay waxba kama yaqaano sida awga shariicadu in boqol shaabuug oo dhangadood lagu dhufto xabsina la dhigo ama la masaafuriyo ayaa shariicadu ay sugtay haddii ninku guur xalaal soo maro oo macaanka uu guur ku leeyahay rasuulku ku sheegay shahru asal bisha hore ee guurku inay tahay bil uu rasuulku ku mathalay malabka oo kale macaankii xalaasha iyo guurka ee uu soo maray ee jirkiisa tin iyo cirib wada gaaray hadduu ka dambaysiiyey macaan kale oo xaaraan ah waa in xanuun looga dambaysiiyaa tin iyo cirib wada xanuujiya وين لو قدم بيسيا وانا آيات قرآن أي أهيد قراءة ذي لنسخي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهم البتة هيد قرآن أهيد أخرس كيدي ولا نسخ لكن حكم كيدي ويالا ما أنت قلوا أي واحد ترى هذا مكوا علمانية ده ما دتك الدين تكسر شيء ده حير هذان مركي هالليان دتك هدي وحده حذان وقعمها اللي وذا جوي هدي إلهي إدمايو أي زينيستان وقار شابوق للدعو يقول لكرباشو وقار نجح لجدله ومضوا على ضمين يا وحلقة دقيقة ضد وذا بيشن واحد اختار جيفا واحد انتي واحد قام جوان يا وشقين يلي جوابت له علني واحد تاي ضدك أردني مزونات به مي زينيستان ومريا الله واحد زينيستان ضدك أردني متوجه وهمايا مريا الله بوا واحد توجته دي مد قعن لا شو ولا جود عرّ لا باش dadka oo dhan ee xaafadaha iyo xaasaska soo wada maray miyay wada zinaystaan kuwa aan waligood guursan miyay wada zinaystaan waa maya waa midhiya laba way sida awgeed baa rasuulku sallallahu alayhi wasallam ninkii saxaabiga xanuunkii dhagaxii ku dhacay jirkiisa ayuu carragod ka soo booday dabeetana waa la baaciyay nin kale oo ka hor yimidna dhagaxii baa lagu dhuftay adigu ninkii nafti baa meeshii kaga baxday saxaabadu way isweydiiyeen dhacdada meesha ka dhacday iyo sida wax u dhaceen ayaa saxaabadu eray bixintoodii way isira weydiiyeen mid canaananaya iyo mid amaanaya ayaa hadalkooda marka axaadiista aad fiiriso ayuu noqnoqonaya qaar waxay yiraahdeen halaka maa'iz
وأحاطت به خطيئته ماعز وادنتي وحي خلد هاي وقلينا وهليلين وواكوبي قال وحي رادين توبد ومانتا توبد كان ماعز توبد لم يذبا ما بقى يجرته النبي صلى الله عليه وسلم وصوبحي مركاسو فالا يرو كوبان كبحيي ماعز بن مالك يرجمنتي للرجمي والنبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لماعز بن مالك ابن مالك ماعز بن مالك إلهي دم بداف ويدي فقالوا غفر الله لماعز بن مالك مركاسو وحي دادين ماعز بن مالك الله دم بداف رسولكم مركاسو وحيري لقد تاب ماعز توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم منك ماعزة والله وحو توبت كان توبت حدي أمتنا إلهي أبورتيو أرلدقن توبت دي ساقف قف لوغو قيمين لها كفلنا الله يدبو النبي عليه الصلاة والسلام توبت دي ساقفلنا لها أمتنا سيدا أمتنا صومالية دو كالي سيدا أمتنا كينية أو كالي أمتنا إلهي أبورتي أما كبا بدن دي haddii loo qaybiyo qof walba waa ku filnaan lahayd toobadda marka uu qofku toobad keeno oo ilaahay u soo noqdo alle wuu kugu jeclaanayaa tuu kaa toobad aqbalaya waxaadan filayn oo aad u qiimo badanna waa ku siinayaa waa garanaysan xadiidkii uu toobadda rasuulku mathalka yaab kale ka bixiyey nin sadcaala oo dhul bahgooye ah oo aan baadiya biyo lahayn oo geed la harsada lahayn nin socda oo neef geela wata awrkiisii sahaydii biyihii u saaran yihiin inuu soo maray oo dabeetana awrkii u saarnaa raashinkiisii biyihiisii wixii uu ka fakaday oo ka baxsaday intuu raadiyey ka quustay dabeetana geed meesha ku yaalla intuu iska yimi hoos seexday oo uu yidhi kollay socod iyo caga meel ku gaadhi maysidii geedkaas naftu ha kaaga baxdo hoostiisa adigoo jiif waxoogaa ka bacdi markuu indhaha isku qabtay mise waa neefkii ka baxsadayoo dul taaganoo hoggaankiisii iyo xadhiggiisii uu laadlaado farxad daraaddeed intuu booday ayuu hoggaankii qabsaday markaasuu wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka akhطa'a min shiddati alfarax buu nebigu yidhi ilaahu adna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaa baanahay muxuu doonaya inuu dhaho ilaahu adna rabbigay baa tahay anna addoonkaagii waa kugu mahad haddaad ii soo celisay yacnii farxaddii ka badatay awgeed ayaa erayadii ka soo baxayay xitaa ayuu maaragtay hadallo waaweyn oo khatara ku hadlay toobadda ilaahay saas ugu farxaya markaad wax shay macsiyo ah ka toobad keentidna ogow wax ka fiican baa ilaahay kuugu bedelaya wax ka wanaagsan baa ilaahay kuugu bedelaya rasuulku wuxuu yidhi weli saxaabigii buu ka sii sheekaynaya laqad ra'aytuhu yatakhadkhadu fi anhaari aljanna wallee waxaan arkay isagoo webiyadii jannada sidaa ugu gadgadoomayaan arkay jannada intii webiya ku taallay isagoo kolba mid kan caano ka cab kan biyo ka cab kan malab ka cab kolba mid isagoo u wareegaya ayaan arkay riwaayad kale waxay tidhaa waladii nafsu muxammadin allaha nebi maxamed naftiisu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye innahu layanghamisu fi anhaari aljanna wuxuu dhex mukhuuranayaa oo dhex dabaalanayaa ee ku dhex jiraa webiyadii jannada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa qiimaha uu toobadkeenku leeyahay oo dunuubta haddaynu ka toobad keenno jannaynu helaynaa weeye micnaha ilahay intuu toobadeenna aqbalo ayuu janno ina siinaya maacis noqnoqoshadiisii dembigii uu galay ee qalbigiisa gubay ee daahiri uu lahaa wakhti kooban dabadeed heerkaasa ilaahay gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala ilaahay addoomkiisa cid uga naxariis badan markuu u toobad keeno ma jirto dembi kasta oo aad gasho gaalnimoba ha noqoto ilaahay waa kaa toobad aqbalaya subxaanahu wahuwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih ilaahay axadka addoomihiisa ka toobad aqbalo wey sidaa awgeed intaa waynu dembaabaynaa waa gafaynaa waa khaldamaynaa gooraynu dhimanaynana ma ogin hadda iminka waxaynu tukannay maqrib waxaynu rabnaa inaynu haddii alla idmo cishihii tukanno goordhow qof ina ka mida oo huba ma jiraa
isagoo nool inuu ilaa cisho gaarayo oo tukanayo aniga idinla hadlaya ma hubo idinka ay maqlayaana ma hubtaa geeridu intaas inoo jirta kabta aad gashan tahay ee suunkeedu fartaada iyo suulka saaran yahay geeridu waa idinka dhowday buu nabigu calayhi salaatu wasalaam adoo socdaad dhiman kartaa adoo fadhiyaad dhiman kartaa adoo taagan baad dhiman kartaa adoo jiifaad dhiman kartaa muhiimaddu waxa weeye waa dhiman oo geeri waa lama huraan laakiin adigoo ilaahay ku xiriirsan oo wadadiisii ku toosan geeridu ha ku timaado ku talagal inaad dhimanaysid weli waqtigan maanta la joogo waa aakhiru zaman mawtul fajr waa badan yahay geerida lama filaanka ah ee ilaahay nabiga uu ka magan geli jiray nabigu ilaahay ka magan geli jiray ilaahu mawtul fajr baan ka magan geli oran jiray way badan tahay maanta sida awgeed baa dhimashadu badan tahay oo mawtul fajr u badan yahay qof walba adigu bal waxaad isku daydaa inaad toosnaatid ilaahay iyo adiga xiriirka idin dhaxeeya bal hagaaji haddaad hagaajiso wallaahi haddaad hagaajiso adiga iyo ilaahay xiriirka idin dhaxeeya adiga iyo xaaskaaga xiriirka idin dhaxeeya waa fiicnaanaya adiga iyo caruurtaada xiriirka idin dhaxeeya waa fiicnaanaya adiga iyo dariska adiga iyo waalidka adiga iyo qaraabada adiga iyo bulshada ku dhex nooshay waa fiicnaanaya waayo meel saraxari kuugu xiran yahay adag wuxuu oran jiray Fudayd ibn Iyaad idaa casaytu allaha macsiya faacrifu dhalika khuluqu ximaari wa daabbatii wa zawjatii markaan ilaahay ku caasiyo markiiba waxaan ka gartaa dhaqanka xaaskayga dameerka aan raaco oo gaadiidka ii ah iyo cidda ii shaqaysay khaadimka ii ah islaantiyo igu hadal celinayso igu yara madax adago isku kaysoo taagaysaan arkaa dameerkii baariga ahaa ee gaadiidka ii ahaayo biqlaynayo aan ogolayn inaan bagaadiidsado ayaan arkaa khaadimkiyo igu dhaga adag ayaan arkaa markaasaan noqdaayo ilaahay u hoydaa markaasaa ilaahay wixii ii hagaajiya sida awgeed ninka aynu ka sheekaynay Fudayd ibn Iyaad nin wuxuu ahaa markii hore burcad ah oo khamriga cabba oo xanuunka aynu ka sheekaynayna caawa ku shaqo leh oo dadku jidka ka mari waayeen oo haddii qorraxdu dhacdo deegaanka uu joogo wax socon jiray ma jiraan laga boqo oo dadka dhibay buu ahaa habeenkii dambe ayuu qof dumar oo aan wanaagsanayn buu la ballamay in xumaan ay dhex marto dabeetana goor dambe oo dadku kala seexday saqbarhkii ah ayuu soo tegey isagoo gidaarkii iyo derbigii intuu qabsaday fuulay isle aad u dhacdid qoftii aad ballansanaydeen aqalkeeda ayuu wuxuu maqlay aqalka ku qabsan daaradiisa bannaanka ah nin tukanaya oo salaatuleyl u taagan muxuu akhrinayaa ninka salaatuleylka u taagan meesha suuratulxadiid aayad ku jirta ayuu akhrinayaa aayaddii markuu maqlay ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل عليه من الحق آيات كاسو مقل جدارك وصاوها يستوي لك مدعين بلى 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 معناه دوا محي مياني أدوان ضدك مسلمين تي مؤمنين تي إيمان كله ميان لقارين وقت قلبي قودو إله أخشوع لها واستبق من لهايين ووحي معاصي الذنوب أي كتيران فرها كلا بحي لهايين لما قارين ميا وقتك ولا قاري إلهي يو وكسر النقط وماشو كتوبت كياني با مركو حوغا صوص صعودي أيو وحو أركدد أور إيو وحو تاغان ووضا هدليا شو دادكو إساقي كهدليا مكاسو وحو يسيريا يكو أركيني بل أفريسو ووضا هدليا وحيلين ور إندتشيا ور أورتا إنوافورا ور نينكي إنكارتا قبي إيه فضايد أها فماشان كتير مفوغا war waxba ina ka reebi maayo waa ina dhacaya waa ina laynaya war socon mayna ina dajiya iyo xogaa aan soconno iyaga wada hadlay oo maqlaya isaga marka waa ninkaas looga baqay moqti markaasuu ilmeey muxuu noqday markii dambe kitaab tafsiir ah kitaab la sharxay oo xadiis ah hadaa saa u kala furtid qaala Fudayd ibn Iyaad bad arkaysa عابد الحرمين بالوبحي حرم كاس مددن فدي عالم نقضي دينت إلهي برت عابد ونقضي
marka aayaadka quraankeena lagu akhrinayo macaahidda la dhiganayo jaamicaadka laga baxayo kutubta la dhageysanayo muxaadaraadka la dhageysanayo waa inay walaalayaal waxayna ka bedelaan waa in dhaqankeena wax ka bedelaan waa inay ilaahay inoo sii dhoweeyaan waa inaynu allah u toobad keennaa waa inaynu alle u noqonnaa ilaahay markuu ku arko inaad addoon diyaar ah tahay oo isaga ku xidhan oo toobad keenaya oo cabsanaya oo baqanaya markuu ku arko ilaahay waa ku tabantaabinaya waa ku toosinaya waa ku hagaajinaya markaasaa nebigu heer wuxuu sheegay qofka mu'minka ah ee toosnaa ee cibaadada iyo khayrka ku toosnaa geeridiisu markay soo dhowaato malag baa ilaahay samada uga soo diraa malagaasi maxaa amar lagu siinayaa addoonkan waqtigiisii waa soo dhowaaday toosi marka haddii wax yar jireen xitaa isku dubarid baa la odhanaya isku dubarid saa markuu dhinto dadku maxay odhanayaan marka laga sheekaynayo ninkaas in dhoweydba sanawaadkan dambeba safal awal buu ku tukan jiray mid kale wuxuu leeyahay alla muxuu quraan akhrin jiray mid kale wuxuu leeyahay muxuu khayr ka shaqayn jiray muxuu sidan ahaa waa addoon la hagaajiyey oo laisku dubariday oo caynkan ah kii kale kharibnaana shaydaan baa lagu sallidaya isagoo waalan buu iska dhimanaya khariban oo bada kale iyo balaayo ku jiro dhimanaya marka waxaan u baahannahay inaynu ku noolaanno ku gabagabeynaya hadalkayga bayna alkhawfi waalrajaa noloshaada intaad caafimaad qabtid ee aad talinayso ee aad tabcanayso ee aad socoto ee xoog leedahay ee xanuunku haynin ee aad nooshahay waa inaad miisaan cabsi iyo raja ah dhexdooda waa inaad socotaa oo micnaheedu muxuu yahay adigoo ilaahay u tukanaya oo rajo ka qaba jannadiisa dembi dhaafkiisa maqfiradiisa adigoo soomaya adigoo sunnihii tukanaya adigoo zakadii bixinaya adigoo sadaqadii bixinaya adigoo wardinaya adigoo ducaysanaya adoo qaraabadii xiriirinaya adoo waalidkii u baarnimo samaynaya adoo wixii khayra ka shaqaynaya oo aad samaynaysa rajo ilaahay ka qabtay haddana cabsi waa inay kugu jirtaa oo maxay tahay cabsidu armaa ilaahay salaada kaa aqbali waaya armaa dembi kaa dhacay oo aadan ogaynoo alla agtii yaallaa jiraa armaa ilaahay ku cadaabaa armay khaatimadu kaa xumaataa armaa naar gashaa arma baqdintaasi waa inay kugu jirtaa taasi maxay keenaysaa inaadan isu bogin oo aadan isla bixin oo aadan isu qaadan dadka inaad ugu cibaado badan tahay dadka ugu fiican tahay dadka ugu deeqsisan tahay ha isu qaadanin isdhaliil waa lagaa fiican yahay waa lagaa cibaado badan yahay ilaahay waa lagaaga dhow yahay waa lagaa toosan yahay addoon caasiyaa tahay khaladkaagaa badan naftaada u sheega oo isdhaliil taasi waxay keenaysaa toosnaantaadu inay hagaagto shaydaankuna albaaba kaa waaye laakiin haddaad isu bogto oo haddaad xoogaa safka hore un ku tukato salaadaha xoogaa aas tiraahdo ninkaa cibaado badanba kumaba soo hoyda magaalada oo ninkaa fiican ma jiro maalintaas waa kuu dhammaatay maalintaasaa gurigaa ba'ay adigana marka waxaan isu dardaarmaynaa inaynu ku noolaanno cabsi aan baqayno iyo camal falasho xagna ka camal falo xagna ka cabso xagna naftaada dhaliil oo u sheeg inaad tahay qof dhaliilan oo khaldan oo gaabis ah oo dadka muslimiinta ee kale kulli ay kaa fiican yihiin waxay keenaysaa walaalkaa inaad ixtiraamto inaad jeclaato inaad xurmayso qiimo kula yeesho ilaahay ku xidhnaato taasay keenaysaa ilaahay caabudid bay keenaysaa ilaahay dembigeenna ha dhaafo dembiga waalidkeenna alla ha dhaafo dembiga muslimiinta oo dhan alla ha dhaafo waa dhimanaynaa khaatumada ilaahay khayr ha inugu gebagabeeyo intaynu joognana ilaahay isagaa wax ilaaliya hayna ilaaliyo diinta iyo camalka saalixa ah ilaahay hanaga ilaaliyo hanagu ilaaliyo ilaahay dad ay diintu dhab ka tahay oo qowlkooda iyo qalbigooda iswaafaqsan yahay allah haynaga dhigo dad diintooda duunyo ku raadiya ilaahayna kama dhigo dad diintooda janno iyo reer raalli ahaansho ilaahay ku raadiya allah haynaga dhigo muslimiinta wixii bukanaa allaha caafiyo wixii daymaysan daynka allaha ka bixiyo wixii kurbaysan kurbada allaha ka faydo tii muraadle muraadkooda wacan allaha siiyo intii dhimatayna allah u naxariisto inta noolna allah uga daba naxariisto maalinta taayadu noqoto ee qubuurta aan gelaynana ilaahay haynoo naxariisto qubuurtana allah haynoo nuuro tawxiidna allah haynoogu khatimo ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala fitanka adduunyada iyo mashaakilaadka jira
إلهي إنه إلاليو إنه إلهي ورالي نجاي الله إنه أفصده dad walaalo oo muslimiin oo iimaanka iyo ehelnimada ku walaalo Allah inaga dhigo xanuunka qabyaalada iyo qurunka Allah inaga saaro iimaanka qalbigeena ku jira Allah quweeyo macaasida Ilaahay nafteena ha ka dhowro diinta iyo khayrka Allah ina jeclaysiiyo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad